Assalaamu calaykum. Muuqaalkan waxaan ku arki doonaa 25 nabi ee Quraanka lagu sheegay sidee looga soo dhex saaraa nabiyada reer Bani Israa'iil ah. Micnihii nabiyada reer Bani Israa'iil ayaan xisaabin doonaa. Intaan mowduuceena bilaabin fadlan muuqaalkan like inoo saar sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Reer Bani Israa'iil asal ahaan waxay ka soo farcameen Nabi Yacquub. Nabi Yacquub baa la oran jiray Israa'iil. Israa'iilna micnihiisu waxa weeye addoonka Ilaahay. Mid ogaada 25 nabi ee Quraanka lagu sheegay nabiyada intaa kaliya ma ahan ee nabiyadu way badan yihiin, intaa way ka tiro badan yihiin. Reer Bani Israa'iil waxay ahaayeen qabiilka nabiyada ugu badan laga soo saaray. Laakiin nasiib darro, reer Bani Israa'iil waxay ahaayeen dad madax adag oo Ilaahay mar walba ku caasiya. Heer xitaa waxa ay gaareen ay nabiyada dilaan. Waxaa la sheegaa dhagax qudus ku yaala in ay ku dileen nebiyo aad u badan. Xitaa waxaa dhici jirtay hal maalin qura inay nebiyo badan ay dilaan. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiraahday reer Bani Israa'iil markii uu nabi ka dhinto isla markiiba nabi kale ayuu Ilaahay u saari jiray. Micnihii reer Bani Israa'iil nasiib bay u lahaayeen nabiyada. Ilaahayna waa uu sharfay, laakiin badankoodu Ilaahay way ku caasiyeen. Dhihi mayno reer Bani Israa'iil dhammaantood gaalo ayay ahaayeen. taas waa khalad. Sababtoo ah nabiga labaad ee dadka ugu badan ay raaceen ay jannada gali doonaan waa Nabi Muuse tolkiisa reer Bani Israa'iil. Nabiga koowaad ee dadkiisa ugu badan ay jannada gali doonaan waa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Marka sidee ku dhigi karnaa reer Bani Israa'iil dhammaantood gaalo bay ahaayeen? taas waa khalad. Xitaa reer Bani Israa'iil nabiyo badan oo laga soo saaray baa jira. Marka nabiyaas magaala waa maya. Marka aan xisaabino nabiyada reer Bani Israa'iil ee Quraanka lagu sheegay, Nabi Yacquub nabiyadii ka horeeyay oo dhan reer Bani Israa'iil ma ahayn. Waayo reer Bani Israa'iil waxay ka bilaamadaan Nabi Yacquub caruurtiisa ayay ka bilaamadaan. Haddaba nabiyadii Nabi Yacquub ka horeeyay aan xisaabino waxay ahaayeen Nabi Aadan, Nabi Idriis, Nabi Nuux, Nabi Huud, Nabi Saalax, Nabi Luud, Nabi Ibraahim, Nabi Ismaaciil iyo Nabi Isxaaq. Sagaalkaas nabi waxay ka horeeyeen Nabi Yacquub, iyagoo reer Bani Israa'iil ma ahan. 25 nabi ee Quraanka lagu sheegay markii sagaalkan nabi laga jaro intee ba soo baxaysa? Waxa soo baxaysa oo soo haraysa 16 nabi. 16 nabi waxaa laga sii jarayaa nabiyadii Nabi Yacquub ay isku xilliga ahaayeen iyo nabiyadii ka dambeeyay ee aan Nabi Yacquub ku abtirsan. Waayo wixii Nabi Yacquub ku abtirsada oo kaliya ayaa reer Bani Israa'iil noqon kara. Nabiyada kale aan Nabi Yacquub ku abtirsanna reer Bani Israa'iil ma ahan. Aan xisaabino nabiyadaas oo waliba aan ka bilowno isla Nabi Yacquub aan ka bilowno. Nabi Yacquub isaga reer Bani Israa'iil ma ahan ee isaga Israa'iil la oran jiray. Tusaale, adiga magacaaga waxaa la dhahaa Cabdiraxmaan. Caruurtaadana waxaa loogu yeerayaa Bani Cabdiraxmaan. Caruurtii Cabdiraxmaan baa loogu yeerayaa. Marka adiga caruurta kama mid tihid ee aabahood baa tahay, ka gooni baa tahay. Marka Nabi Yacquub isaga reer Bani Israa'iil kama mid ahan. Isaga Israa'iil la oran jiray. Bani Israa'iil waxay ka bilaabanaysaa caruurtiisa. Nabiyadaas waxay kala yihiin Nabi Shucayb, Nabi Ayuub, Nabi Dhulkifli iyo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Afartaas nabi Nabi Yacquub kuma abtirsadaan. Afartaa nabi wali waxa ku dartaa Nabi Yacquub isagana ku dar. Shantaas nabi reer Bani Israa'iil ma ahayn. Horeyna tirada waxaan u haysanaa 16 nabi. 16 nabi markii 5 nabi laga jarana waxaa soo haraya 12 nabi. Marka 25 nabi ee Quraanka lagu sheegay 12 ka mid ah in ku dhow 50% waa reer Bani Israa'iil. Bal aan sheegno 12 nabi ee reer Bani Israa'iil ah. Waxa ugu horeeya Nabi Yuusuf, waxa kale ku xiga Nabi Yoonis, Nabi Muuse, Nabi Haaruun, Nabi Yasac, Nabi Ilyaas, Nabi Daa'uud, Nabi Sulaymaan, Nabi Zakariye, Nabi Yaxye iyo Nabi Ciise. Waa kaas 12 nabi ee reer Bani Israa'iil ah aan xisaabinay. Intaas ayuu mowduuceena ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.